Aqoonyahanku wuxuu aqoonyahan yahay marka uu Rabbigii yaqaano, aakhirana yaqaano, adduunkana wax isbeddel ka samayn karo. Dhalasho wacan markaan leenahay, taas macnaheedu waa sanad baan xawaash u dhawaaday. Taas ma wax lagu farxaa? Inaad noqoto qof hami leh, hal leh, hiigsi leh, oo hiraal u muuqdo waa lagama maarmaan. Dunida dadka isdila iyagaa ugu badan reer galbeedku meeday barwaaqadii ay sheegayeen. Dadka kuwa ugu hantida badan ayaa ah kuwa ugu hurdada yar. Dad badan baa dibadda ka qurux badan, guriga markay soo galaan bahal ah. Qofka aad nolosha isku darsateen iyo carruurta aad dhashay inaad ku xumaato, dibaddana nin fiican lagaaga yaqaano, hebel la yiraahdo noqotid wax fiican maaha. Aqoonyahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo, suldanadu iibsan karto, dowladuhu laaluushi karaan, kaasi aqoonyahan maaha. Gool baa la dhaliyay, maxay noloshaada ku soo kordhisay? In hooyo la noqdo waxay ka qurux badan tahay inaad noqoto injineerad. Nin walba qabiilkiisa inta la dulmiyey buu og yahay, laakiinse ma oga intay dulmiyeen oo ay aakhiro u direen. Qur'aanka haddii aad akhrido, qof Rabbigii u warramayo ayaa tahay, bal qiyaas Rabbigaa oo kula hadlaya oo ku warramaya. Hadday jannadu tahay meesha qofka lagu nimcaynaayo, cadaabtuna tahay meesha qofka lagu ciqaabayo, adduunyaduna waxay tahay meesha qura ee la isku imtixaanayo. Ilmaha inaad guri ugu tagto waxaa ka qiimo badan inaad diin ugu tagto. Inaad dhaqaale u samayso waxaa ka qiimo badan inaad isaga ka dhigto qof jira oo nool oo muslim ah. Haddii uu qof muslim ah noqdo, naftiisa ku kalsoon, meel uu seexdo iyo wuxuu cuno isaga raadsanayo. Jaamacad baan ka baxay, shahaadaan qaatay, shaqo fiican baan helay. War waad tegaysaa, waxaasoo dhan waa maalin ama maalin barkeed ay nolosha oo dhan kula noqon marka qiyaamo lagu weydiiyo. Oo noloshu ma maalin barkeed baad dooratay marka? Islaamnimadu wax mucaarad la yiraahdaa kuma jirto. Islaamnimada waxaa ku jira xaq iyo baadil. Wixii xaq ah inaad taageertaa waa waajib, wixii baadil ahna inaad ka soo horjeesataa waa waajib. Mawduucani intaas ayuu ku egyahay. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto xigmadahan. Intaan mawduucan mid lamid ah ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.